Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Maxaa ka taqaanaa xeradii uu Hitler ku xasuuqi jiray Yuhuudda iyo waxa uu ku doortay meeshaas? Koox xaruur ah oo badbaadiyay oo ka dambeeyay darbiga siliga ah ee xeradii Naasiyiinta ku xasuuqi jireen Yuhuudda 27kii bishii Janawari ee sanadkii 1945. Ciidamadii Sofiyeedka ayaa si taxadar leh u galay xerada Auschwitz. Prima Levi oo ka mid ah dadkii caan ka noqday ee badbaaday ayaa yaalay isbitaal ku dhex yaala xerada. Raggii ciidanka ahaa waxay indho aad u yaxyaxsan ku eegeen meydadkii faraha badnaa ee halkaas yaalay, iyo intii yarayd ee weli noolayd ayuu goor dambe ku yiri qoraal uu sameeyay. Nama aysan salaamin, mana aysan noo dhoola cadaynin, waxayna u muuqdeen in ay ka xumaayeen falalkii meeshaas ka dhacay. Muddo 4 sano iyo bar gudaheed oo keliya, Naasiyiintii Jarmalka waxay xerada Auschwitz dhexdeeda ku dileen 1.1 milyan oo ruux. Ugu yaraan 1 milyan oo ka mid ah dadkaas waxay ahaayeen Yuhuud. Dadka xeradaas la geyn jiray waxaa lagu leyn jiray siyaabo kala duwan, sida in gaas lagu buufiyo, iyo in gaajo lagu dilo, iyo in lagu shaqeeyo ilaa inta ay ka dhimanayaan, iyo weliba in la dilo iyagoo tijaabooyin caafimaad loo adeegsanayo. Hase ahaatee, badankoodu waxay ku dhinteen gaaska lagu buufiyay iyagoo ku jira xerada Auschwitz. 6 milyan oo Yuhuud ah ayaa guud ahaan lagu dilay xasuuqii ay geysteen Naasiyiinta Jarmalka ee uu horkacay Adolf Hitler. Xerada Auschwitz waxaa lagu tilmaamaa inay xudun u ahayd xasuuqa. Waa maxay xasuuqa Yuhuudda ee loo yaqaan Holocaust? Naasiyiintii waxay burjikooyin biro ka samaysan ku gubi jireen meydadka dadka ay dileen. Markii uu xabsiga Naasiga la wareegay awoodda Jarmalka sanadkii 1933, waxaa bilowday in dadka Yuhuudda ah laga qaato hantidooda dhammaan xuquuqda sharci ay lahaayeen. Sanadkii 1939, Jarmalkii wuxuu qabsaday waddanka Poland, isla markiina Naasiyiinta waxay bilaabeen in ay meel isugu geeyaan dadka Yuhuudda ah iyagoo ka dhex saaraya dadweynaha kale. 1941, markii ay ciidamadii Jarmalka xoog ku galeen Ruushka oo markaas loo yaqaanay USSR, waxaa bilowday ololaha lagu sii ballaarinayay xasuuqa Yuhuudda. Dadkii Naasiyiinta ahaa waxay falkaas ku micneeyeen dagaal tartan ah oo u dhexeeya iyaga iyo dadka Yuhuudda ah. Maxay tahay xerada Auschwitz? Auschwitz markii hore waxay ahayd xero militari ah oo ciidamadii Poland ku lahaayeen koonfurta waddankaas. Naasiyiinta Jarmalka ayaa Poland qabsaday bishii Sebtembar ee sanadkii 1939. Markii la gaaray bishii May sanadkii 1940, waxaa goobtaas ka dhigeen xabsi lagu xiro maxaabiista siyaasadda. Intii uu xasuuqa socday, Jarmalka wuxuu si fiican u dhisay xeradaas, waana la sii ballaariyay. Ugu horreysay ee gaaska lagu buufiyay xerada waxay ahaayeen maxaabiis u dhashay Poland iyo Sofiyeedka, kuwaasoo la laayay bishii Sebtembar 1941. Goobtaas waxaa lagu leynayay ilaa bishii Noofembar ee sanadkii 1944. Dadka la dilana waxaa meydadkooda lagu gubiyay burjikooyin ka samaysan biro. Markii xerada Auschwitz la xoreeyay, ugu dambeyntii waxaa ku yaalay ilaa 40 xero oo gudaheeda laga sii sameeyay. Ciidamada waardiyaha ahaa ayaa leyn jiray dadka ku jira xerada. Dadka laga kala keeni jiray guud ahaan qaaradda Yurub ayaa lagu qaadi jiray kunteendharo aan lahayn daaqado, musqulo, meelo la fadhiisto, cuntana lama siin jirin ilaa laga geeyo xerada Auschwitz. Kadib waxaa loo kala saari jiray kuwo awood u leh in ay shaqeeyaan iyo kuwo si degdeg ah loo dilo. Gaas awood badan oo loo yaqaano Zyklon B ayaa lagu buufin jiray, waxaana dilkooda ku filin jiray ciidamada ilaalada ee ka amar qaatay Naasiyiinta. Yuhuudda oo ku kala noolayd dhammaan dalalkii uu maamulayay nidaamka Naasiga ayaa ahaa dadka ugu badan ee la xasuuqay. Inkastoo ay jireen maxaabiis kale, Yuhuud badan oo kasoo jeeday waddanka Hungary ayaa lagu dilay waqti gaaban gudihiis. 10,000 oo ka mid ah Yuhuudda reer Hungary ayaa maalin kasta loo dili jiray xerada Auschwitz. 3 meelood hal meel oo ka mid ah waxaa la dili jiray isla marka ay xerada gaaraan. Qiyaastii 75,000 dad rayid ah oo u dhashay waddanka Poland, 15,000 oo ahaa maxaabiistii dagaalka ee laga qabsaday Sofiyeedka, iyo dad kale oo fara badan ayaa dil lagu xukumay xeradaas. Haddaba intaas ayuu ku egyahay mowduuceena. Tan iyo muuqaalkiisa xiginta ku kulmi doono, waxaan iga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.